السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda Soomaali Swiss oo kaga timaada maalin ka soo qameysa magaalada Zurich ee dalka Switzerland. maanta bishu waa 10 sanada 2014 barnaamijka waxyaabaha ku soo qaadan doono waxaa kamid ah aqalka wakiilada dalka kan Switzerland ayaa wali isku mari la qaadashada dhalashada wadanka kan Switzerland. waxyaabaha kale oo aan ku soo qaadan doono waxaa kamid ah jaariyada Soomaaliyeed ee gobolka Bern oo xafiis ka furatay magaalada Bern, xafiiskaas oo bulshada Soomaaliyeed u adeegi doono. waxaa kale oo kamid ah waxyaabaha aan ku soo qaadan doono idaacadda tan xirfad iimaan masjid oo laga ogolaaday dalka Switzerland markii ugu horeysay. xirfadaas oo ay bara doonaan dadka culimada masaajidada. waxaa kale oo aan barnaamijka ka marnayn heesihii dabacsanaa iyo waxyaabihii naga soo gaaray Soomaaliya. haddana heestii
aqalka wakiilada dalka kan Switzerland iyo golaha shacabka ayaa weli wax isku mari laayeen qaadashada dhalashada wadankan Switzerland haddana wax walba waa sidii hore qaadashadaas oo lagu qaadan jiray dhalashada wadankan Switzerland 12 sano ayaa dadka qaar waxay ku doodayaan hadda in laga dhigo 8 sano ama 10 sano waanu arki doonaa wixii ka soo baxo jaaliyada wadanka kan jaaliyada Bern ee wadanka Switzerland ayaa markii ugu horeysay xafiis waxay ka furteen Bern xafiiskaas oo adeegi doono dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Bern xafiiskaas waxyaabaha uu qaban doono waxaa kamid ah inuu dadka bulshada Soomaaliyeed ee degan meeshaas uu uga shaqeeyo waxyaabo kala duwan sida inuu u sharaxo waxyaabaha ay xaq u leeyihiin ina usoo dhiciyo waxyaabaha ay xaq u leeyihiin waxaana gudoomiye u ah mudane Cabdi Qadar waxaana kamid ah madaxdaas hore ururkaas Nadiifa Cali iyo Samsam Cabduqaadir iyo Cabdicaziz Cali iyo xubno kale oo aad u fara badan xafiiskaas ayaa waxaa la rajeynayaa inuu kusoo kordhiyo magaalada Bern waxyaabo aad u fara badan dadka Soomaaliduna ay aad uga heli doonaan waa sida ay sheegeen madaxda ururkaas magaalada tan wadanka kan Switzerland ayaa markii ugu horeysay waxa laga ogolaaday xirfadda masjid oo ahayd markii hore qofku inuu shaqo u yimaado laga soo qaato wadan islaam ah ayaa hadda waxay noqon doontaa xirfad dadka ay bartaan taasoo ay dadka muslimiinta ee aad ugu farxeen markii arrintaas ay soo baxday arrintaas oo markii ugu horeysay Freiburg magaalo la yiraahdo gobolka la yiraahdo laga bilaabay ayaa waxa aad ugu farxay dadka muslimiinta ee degan wadankan dadka muslimiinta wadanka kan Switzerland degan ayaa waxa lagu qiyaasaa 800 oo kun oo qof waxayna degan yihiin ilaa 50 sano in ka badan
arrimaha masaajidka ayaan dib ugu soo laabanayaa. Wadanka kan ayaa wuxuu ogolaaday inay xirfad la baro culummada dhigta ama masaajidada ka shaqeeyo si ay u bixiyaan lacagta masaajidada. taas ayaa dalka kan Switzerland waxaa looga arkaa arrin aad u wanaagsan dadka muslimiinta gaar ahaan. inkastoo diinta islaamka aan si official looga aqoonsanin wadanka kan Switzerland, haddana waxaa la rajeynayaa inay masaajida ay maalgeli doonaan maalgeli doonto dowladda tan Switzerland. qofkii raba wax badan inuu ka ogaado siyaasadda wadanka kan Switzerland wuxuu booqan karaa website-keena somali-swiss-diaspora.com. waxaa kaloo jiro wadanka kan Switzerland in markii ugu horeysay la yiri qofka ugu mushaar yar wuxuu qaadan doonaa $4,000 4,000 oo lacagta wadanka kana. waxay u dhigantaa 4,000 oo lacagta wadanka kan Switzerland $4,000 ama way ka badan tahay. taasoo dad badan oo qaxooti ama dad badan oo wadanka kan Switzerland ay u arkaan arrin aad u wanaagsan oo lagu soo kordhiyay wadanka kan Switzerland. dowladda wadanka Kenya ayaa waxay qabasho ku haysay dadka Soomaalida ee maalmihii la soo dhaafay. xaafadda Islii ayaa waxa laga qabtay dad aad u fara badan oo kumanaan gaaray dadkaas oo lagu xareeyay xabsiyada wadanka Kenya. dowladda wadanka Kenya ayaa waxay maantay waxay kala toola dib ugu celisay magaalada Muqdisho dad aad u fara badan oo Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay dadkaasi inay ayagu codsadeen in Soomaaliya lagu celiyo. arrin ay BBC-du ka diyaarisay ayaa waxay u dhaceysay sida tan. waxa u weyneed garaabistayaal iyo waxa alkulistayaal inay meel nagula xareeyeen 5 maalin iyo 5 habeen ku jirnay. wax raashin ay dadku siinayeen ma jirin. ay sida markii hore lagu soo qabtay adiga gurigeena ugu soo galeen, guriga dhexdiisa ay naga soo wadeen. ay marka sidii lagu la dhaqmay maxaad ku tilmaami kartaa?
fiican ma ku tilmaami karo si oo xishnimo ay noola dhaqmeen oo bilaadanka baxnimo ah hadda waddankaagii aad timid maanta lagu keenay sidee tahay aragtidaada maasha allah aad iyo aad waan ku faraxsanahay waddankayga inaan maanta imaaday waana ku qanacsanahay bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waxaa la yidhahdaa faxiima cali cabdi waddanka kenya waxaan u tegay waxbarasho waxaan joogay 9 bilood markii aan tegayay waxaan jeclaa mustaqbal iyo hamiyaan ka lahay inaan meeshaas waxaan jeclaa aan masta ka sameeyo bilihii igu horreeyay hadda 9 bilood aan joogo luuqadda isku xoojinaaye fiisihii aan ku galana wuu iga dhacay ma ana cusbaysaneen maalinkii sabtida ayaa waxaana loogu soo galay xaafadda ciidamo badanaa noo soo gala waxay dhaheen waddankan maxaa ku joogtiin waxaan ku dhan ani arday aan ku dhanoo kale waxaan tusay student kaarki waxaan u sheegay meesha inaan wax ka barto student kaarki aan tusay fiisiina oo iga dhacay agtiisna aan u heli inaan cusboonaysiisto wuxuu igu dhahay maya ilaa waa bixeenaa waa baxnay gabadhan walaashii aan la noolaa markaas 5 carruur oo yaryar ay haysatay carruurta xitaa waa laga soo waday baawur weyn oo looriya banaanka loo soo dhigay xitaa baawurka koritaankiisi waa kor way aniga farxii ahaan 5 daqiiqo baawurka saa u kor waa baawur ciidan oo ahay oo naag xun iyo nin xun oo ay wataan ay ku tumayaan akhiiran waana la wada waxaana la geeyay xabsiga marka la geeyo waxyaaba ay wiilka badnaa waxay ahaayeen meesha hadda aan joogno camal ay boodkaan camal ay ahayd kore ka banaaneed wixii garaagista magaalada joogay oo jaqaraha ay dhahayeen wixii nin magaalada joogay oo isku keenay xiray مسخوش هل مسخولاس لقينا ماشي هل بوسشين واي وادريم كرتا حتى جاجدنا ديش عمر هركيga noo soo qaadeen oo cunug weyn dhalinyaro waa islaamiga dhamaantiin Soomaali in Allah inta maqalkii muuqayga taqaana ana Cabdikariin Maxamed Daayira waxaan halkan ka cadeynayaa runaantii Kenya ka yimid runaantii Kenya waxa taala gumays aad u fara badan waxa taala dhibaato aad u fara badan waxaan ugu ordayna Kenya waddankan waxa weeye waa waxbarasho la'aan Soomaaliya waxaan madaxda ka codsanaynaa dalka Soomaaliya inay ku dadaasho sida dadka Soomaaliya wax u bari lahayd hay'adda Kenya waxa aad ugu ordaa waxa weeye waxbarasho ganacsi nama dheeraysto naf nama dheeraysto markii runaantii aniga aan meesha joogay sida leela dhaqmay mise leeyii soo dhaweeyay anigoo naftayga dhacayso oo meel kaadil aan jiifno oo waxaan ku yiri suuliyaashu buuxaan saasay tahay lagu sii dheertay saabug loo dheeryahay dhibaato noo dheertay ma garatay jokora lagu soo xareeyay injir meesha dheertay meesha meel aan ka sheekeyn kara ma laakiin waxaan la leeyahay runaantii yaa la isku dayin waddanka laga tago salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda Somali Swiss Lora waxaan isku dayeynaa inaan idin soo gelino qof jooga Nairobi si uu nooga sheekeeyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee magaalada Nairobi ka dhacay qofkaasna waxaan ku sugaynaa barnaamijka kan